qaybta labaad daawashana qiimaha leh qaybtan labaad waxaanu ku eegnaa waa maxay waxyaalaha horta qofka musharaxa ah ee wadan doonaya inuu wax u qabto lagu garto waxyaalaha qofka musharaxa marka oreysa lagu garto waxa weeye horta qofkaasi laba uu kala baxaya qof waa qof election ku jira oo dib doorasho ku jira sida madaxweyne Farmaajo kale sida labada madaxweyne hore ayaguna waa iska re-election ayaga labada madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh waxa loo karaa labaduba waa dib doorasho dani laftiisa waa dalacaad oo asaga laftiisa meel buu ka soo dalacaya meesha wuxuu ka qabtay waxay qayb ka noqonaysaa waxa uu Soomaaliyeed u qabanayo wuxuu ka hadlayeen wax lagu xisaabtamo noqonaysaa marka mid qof waa qofkaas oo qof xisoo qabtay qofna qof madax bannaan oo hadda cusub qofka cusub inta badan wuxuu uu sheegayo oo dhan waa gacan uur ku jirta inay saan noqon doonto isaga laftiisaan hubin oo boqolkiiba 90 wuxuu idea fiican ka haysanin xitaa waxaanu ka hadlayo waayo wadanka xisbiya ma laha xisbiyadu waxay ku wanaagsan yihiin inta soo jeer bay tartameen wasiiray qaarkood soo noqdeen qaarkood wadanka ay joogeen shacbiyad bay leeyihiin gobolada dhan bay joogaan waxyaalaha ay soo dirayaan iyo xogaha iyo daraasadaha cilmi baarista ay soo dirayaan dadka wakiilada gobolada uga aba la keenaya mar walba waxaas ay ku jaangoonayaan waxay qabanayaan iyo waxa dhiman laakiinse nin suud sito oo qurbaha u badan oo Nairobi degan oo ama degan Uganda ama degan Mareykan ama meel kale degan oo meel iskaga maqnaayo markii uu meesha u soo xil doontay markuu qoraal fiican oo qurux badan oo af macaani ah iyo tarooriga ku soo qor ama nin haduu doono xamarba u badnaa laakiin se dalal shay ay u shaqeynayaan ama arrimo kale iska watay ama guriga uu iskaga xidhnaa oo qol guriga inta meel ka kiristay ciidan isku koobay wadanka marxaladiisu moogtahay Facebook maaha moogtay sidoo kalena maaha moogtay safaro iyo safiir xalana inta loo tago leeyahay safiir baa la soo kulmay yaani inta way ka duwan tahay marka qofkaasi asaga waa xaajana uu xumaa karaaba runtiina Soomaalidu hadda uma baahna nin noocaas oo kale runtaan anu idin sheegaya sida aragtidayda iyo sida wadan soo kamanaya dawladda ku jira uma baahan laakiin qofka ku jira dib doorashada saalahan shantaan nin ee maanta xilalka soo qabtay ay ugu horeeyaan madaxweyne Farmaajo waxa laga rabaa horta marka u horeysa barnaamijkii ay qabteen wixii u hagaagay oo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 maartay wada socdaal raba oo qodobaysan hadda salahan madaxweyne Xasan Sheekh maalmihii qudbada jeedinay maanta musharaxii hore ahaa markii hore xilkii hore hadda Farmaajo ku guuleystay hore 2011 waxyaalaha uu sheegayay kamid ahaa wax qabadkiisa waxa kamid ah wuxuu yiri dawladdeena waxaan ka saarnay kumeel gaadhnimadii dawladdeena kumeel gaadhnimada asagu kama saarin waxa ka saaray oo soo gaarsiiyay halkaasi Shariif xilligii Shariif ay qabsoontay sheekada ah in ay wadanka kumeel gaadhnimada uu ka baxo yaani waxayna ahayd heshiisyo markii la xamarada doorashadu ka dhacdo ayaa dalku kumeel gaadhnimada ka baxay oo dawladii dibadda lagu soo dhisi jiray ayaa maaragtay saas laga baxay waxaana ahayd deadline Soomaalida la siibay laakiin waxa jiray 100 mashruuc oo kale oo New Deal-kii uu kamid ahaa oo ciidan dhisidu kamid ahayd oo chapter 7 oo wax laga taaban kamid ahayd oo arintii hawada kamid ahayd oo aan waxba laga qaban sideedina ku dhamaatay waxa kale oo kamid ahayd arrimo kale waaweyn marka mar rabo hadda inaan yaani arinta aan loo qaato inaan dhinac jirno maartay aan qof dhaleecayna laakiin waxaan ka hadlayaa xigmadda qofka isagoo kale amaanta waxa laga rabaa wixii uu qabtay inuu ku attach gareeyo ku maartay lifaaqo waxa uu qabanayo oo laakiin se waxyaalaha moral aan oo 1 iyo 2 iyo 3 laga rabo waxyaalaha Xasan Sheekh inta badan oo runtii loo karo waxa uu ka qabtay waxa kamid ahayd in uu maamul goboleedyada federaalka waxa la yiraahdo inkastoo Jubaland dhibaato badan isku geysteen oo dagaal culus ka dhaceen oo dhibaato badan ka dhacday ciidamada Kenya ay dhibaatada ugu badan mar walba geysanayeen iyagu anugu aanamsan mar walba Kenya arinta wixii ka xumaaday Jubaland iska lahayd laguma leeyahay karo Xasan Sheekh waayo dagaalada dhacay xilligiisi aad u adag Jubaland madaxweynaha marka jabhadaha wuxuu ku eedeey jiray Xasan Sheekh ku eedeey jiray laakiinse ma noqon karto iyadoo ciidamo shisheeye wadanka duulaan ku soo galay in Soomaaliya dusha laga fuulo sax arrin ma aha arrin muwaadinimadeena saamaxaysa marka mar walba wixii halka ka xumaada Kenya iska weyn iska cadda waayo wadan cadow ciidankiisa markii kugu dhex jiro kugu dhex noolaya wadan nagu soo duulo ah see looga filanaya wax wanaagan meesha iska qabsoomaan ama dawladda Soomaaliyeed laga ogolaado marka dawladda Soomaaliyeed waxay haday tabareeyay la taageersaneed ama kuwa kala taageersaneed nafta u geysay wadadkoodii oo ninka markaa Soomaaliga uuna
hadduu doono warder ha ahaadee unbaa Soomaaliya laakiinse dee meesha wixii ka dhacay waa la ogaa maaragtay mar walba waxay ahayd xumaan iyo dhibaato xoogan oo Kenya wadato ayay ahayd runtiina anigu aad uma hayo Soomaalida kale ee markaasi ayaguna deegaan ka soo jeeda reer Jubbaland waxaan u arkaa in ayaga lafkooda la qabsaday oo lagu fushanayay dano oo Kenya ay danaheeda ku fushanayay doonaysan si ay Soomaaliya u soo gasho sida ugu fududna ay saas u noqotay marka laakiin waxaa jiray arinta maamul goboleedyada galmudug oo kale maamul goboleedyada ka sameeyay inkastoo arintaas lafkeedu ay keentay khilaaf kale oo dhinaca dastuuriga ah oo ahayd salahan in markii madaxweynuhu cadaada kaga dhawaaqay uu yiri maamul goboleedka ugu dambeeyay aan sameeynay dad badan waxay u arkeen arrimaha dhinaca midnimada dalka iyo arrimaha maartay wada jirka ummadda Soomaaliyeed iyo gobollo badan oo aan marxaladooda la ogaanin oo maartay dood badan baa barigaas ay dhalisay arintaas oo dood sharciyeed bay dhalisay taas marka laga yimaado waxaa la rabaa waxyaalaha barnaamijyada dib u doorasho maxaa lagu dooranaya in ay caddahay inay wax lagu dooranayo waxaa runtii ay mudan yihiin xildhibaanada cusub in ay diiradda saaraan dadka khibradda leh ee soo shaqeeyay ee wadanka u soo madaxnimada ka soo noqday qodbadahooda inay diirad iyo kifad iyo miisaan saaraan laba siyaabood labadaba waa inay u saaraan waa koowaad horta mar walba qofka ceelka galay iyo kow ka ceelka hadda loo tuuri doono loo la geli doono ka ceelka galay baa laga wareysta ceel ninkii galay baa ka warhaya uu ka khibrad badan yahay hataa ka ugu wax qabadka yaraa madaxda hore anigu waxaan aaminsanahay nin cusub hadda inuu ka wax qabad badnaanayo haddii boqolkiiba xataa 40 uu daacad wadanka u yahay boqolkiiba 40 oo inuu wax qabto ay daacad niyad wanaag ka tahay waayo sababtoo ah waxa waaye de wixii uma cusba horta wixii uma cusba wixii ayuu hagaajin karaa marka mar walba qofka khibradda leh xataa shirkadaha privateska ay gaarka loo leeyahay qofka aqoonta faraha badan leh PhD inuu soo qaatay ama taqaaqus expert ah ee specialist ay specific and specific item ku taqaqusay iyo qof itemka ay raadinayaan 20 sano 10 sano ka soo shaqeeyay waxay door bidaan 5 sano kaliya ka soo shaqeeyay waxay door bidaan qofkaas soo shaqeeyay oo qofkan ka aqoon badan yahay laakiin qofkani ama PhD-diisu waxa tarmiiso this guy 5 years buu meesha ka shaqeynayay maxay tahay shaqada practical buu yaqaanaa gacan ka qabad buu yaqaanaa waxay markiiba waxa qiimo badan oo la shaqaalaysiinaya oo faraha lagu boodaya qofka khibradda leh khibradu iyo maaragtay aqoontu waa theory waa lagu sheegay waa lagu sharaxay laakiin practical shaqadii uma qaban adigu imagine هذا ارتسكل مركز الله دقو قف أن ليسن كي قارقة سوقات ولكن ولي قارق وليه أن استارين ينن أو دريول جببي أهو هل كافرديو أو ماركتي إيش جن لما تنسى قارق ودي هدي قرا سفر بنكو وضنا كيبات رأسه كوين برأسه لكن أول مسنين كان قارقة عصب هذا سوقات هاي ليسن كان هذا سوقات هاي برا عمله هيس نفط هذا كمان عمليس سيدا سوق اللي وحوي وحلاقة هذا وقرن وي وحلاقة هذا waxaana laga hadlayaa qaran dumay oo baaba'ay oo dhulka galay oo la dhisayo waxa laga hadlayaa qaran wadamo shisheeye iyo kooxo isku xiran oo halis ay dana kale yihiin isla markaana la doonayo cid ka badbaadi karta waxa laga hadlayaa qaran wax loo qabtay waxa loo qabtayna si badan loogu soo qabtay waxa u hareynay ka badan yihiin waxa loo qabtay waayo de adduunka sida wax loo dumiya aad bay u fudud laakiin si wax loo dhisay aad bay u adag adduunka dhowr jeer arintaas aan tusaale soo qaadana adduunka burburku wax aad u sahlan Ukraine wadanka la yiraahdo shalay wuu dhisnaa wadooyinkiisii railwayskiisii airportadiisii xarumadii ciidamada korontadiisii biyo mareenkii bundooyinkii waaweynaa wabiyada meesha loogu gudbi jiray waxay tahay sheegeen like waxaan ka hadlanaa 14 beri ka hor uu dhisnaa 14 beri ka hor 15 beri ka hor sidee waxa laga soo bilaabay 24 bisha hore baa laga soo bilaabayaa maantana waad ogtihiin waa bisho waxa weeye waa koobiton yani waa 15 beri ka hor wadankaas wuu dhisnaa waa 15 beri moogti wuu dhisnaa quruxdooda maanta waxaad moodaysaa in qiyaamihii ka dhacay qiyaamihii ka dhacay maxay ku tusinaysaa wadanka intee sana la dhisay qarniya la soo dhisay wadankaas boqortooyooyin iyo albaxanooyin kala duwan ayuu lahaa waxay lahaayeen 70 sano ugu dambeeyay dhibaato inta leeg ba wadanka ku soo noqonaysa 1941 ba ugu dambeysay in guriga laga dumiyo wadankaas maanta wada aragtay maxay ku tirsanaysaa markaa sida wax loo dumiyaa aad bay u fudud sida wax loo dhisaasay aad iyo aad bay u adagtay ka waran wadan maxay tahay sheeg la baabiyay
oo sharciyadiisii iyo kala damayntiisii iyo state-kii baa collapse garoobay, statehood-kii baa la waayay. We lost the statehood completely. يعني qaran baynu dhuminay, qaran dhan ayaynu dhuminay oo weynay, oo kabayaashii dhaqaale weynay, oo dawladdii weynay, oo ciidankii booliiska weynay, oo wadooyinkii weynay, oo korontadii weynay, oo kaydkii weynay, oo aynu bulshadii iyo kala damayntii iyo akhlaaqiyaadkii weynay, oo shacabkeennii weynay, oo nafihii weynay, oo madaxdii iyo dadkii aliidka ahaa ee aqoonyahanka ahaa ay carreen dalka dibadiisa ku wada dhinteen, oo diblomaasiyiintii weynay, oo safaaradihii weynay, oo waxaynu weynay calankii baa dhulka galay. waxaynu markaa galay calooshii cadowgeenna ayaa intuu kooxo inoo soo diray manaxayaala oo warlordisa aynu bayna soo dhaxdhigeen. markaas waxay isbaarooyin kala dhigdhigteen magaalooyinkii iyo gobolladii iyo tuulooyinkii bay kala dhigdhigteen. yacni kadibna waxaynu ka soo noqonnay taxadka baynu tagnay, sagxadda ayaynu kasoo fufarnaa. markaasaa weli haddana madaxana nagala sii garaacayay. marka maxaa loo baahan yahay marka farshaxan yaqaan, qof farsamo yaqaana oo khibrad haysta. khibraddu marka maxay qofka ka caawinaysaa? waxay ka caawinaysaa xataa mistake uu sameyn karo in maartay uu ka yaraado ka cusub uu ka yaraado. farsamo yaqaanka ninka korontada aan aqoonin iyo ninka yaqaana ayay kala duwan yihiin si uu fiilooyinka u kala garto. wadanka Soomaaliya marka wada fiilooyin dooda daba ka soo taagan, wada koronto ba ka soo taagan. midnimadiisiiba su'aal ku jirta, dadkii iyo muwaadinimadii dalka ayaa dhibaato ku jirta. khayraadkiisiiba maartay la doonayo la badbaadiyo. xorriyadiisi uu wada chapter 7 ba wadanka adogteen si looga soo badbaadiyay. marka dadka xildhibaanada ah waa in qofka xildhibaanka ah waa inuusan ka fikirin caloosha maanta saa doonta ku soo bax, ha lagu dhaco kursiga, ha lagu siiyo, ha lagu xado, ha lagu xiro, ha lagu xaniya taabasho ku soo qaado. waroy waxa lagu dhaarinaya hadhow waa Soomaaliya baa lagu dhaarinaya, qabiilkiina cid ku dhaarimayso, ninkiina lagu dhaarimay. dhaartuna waa laba nooc, mid waa mid dah gadaashiisa, miduna waxa weeye mid wadanka iyo ummadda dhan oo ku arkaysa dhaarinaysa. ummadana makhraati ka ilaahayna muxuu yiri ummadan waxay makhraati ka tahay iyada isku makhraati. marka dhowto TV-ga laga soo duubay intaas oo kun oo qof ay milyan oo qof ay yiraahdaan mar intuu dhaarinayay wadanka iyo dalka daacadnimada, kadibna calooshaada hala tashanin, misqaxdaada la tasho, qalbigaagana hala tashanin, waayo qalbigooda caadifi laakiin misqaxda ku bisle. kadibna waxaad is weydiisaa wadankan horey ma wada karnaa, mas'uuliyad ayaa ka saaran wadankan horey loo wado. qaybta saddexaad